anagu runtii waan ku soo horjeednaa dalka mushaarkana Soomaaliya ee walaalahaya in dadkooda iyo xuduudkooda iyo badoodii la goosto saadiradeed waxaan u aragnaa duulimaad ku salaysan Soomaali sidii loogu soo duuli lahaa marka aad iyo aad baan wayaan anagu ugu xunaadaan bulshada reer Soomaaliland nahay maanta haddaan tago shidaalka la sheegayo inuu shaqo tago daanu siyaasi meeyo hore laga siinay shaqada meeshii wala khayraad ka soo baxana weyn wada leen dadkana waa dad Soomaali iyaga qaldan oo inoo qoyso waay haddayna aqoonsanaana hiilka weyn u kordhinay runtii marka Kenya halka sheeganaysa dee Muqdisho meesha waxa waa 50 kilomitir bay Muqdisho jirtaa dhinaca badda marka runtii wax imika soo cusbaana maaha Soomaaliyana imika ayagu is ogaadeen mar hore la qabsaday marka kaliya quraatay dadka quraatay ku kalsoonaa ee maanta difaaci laha waxa weey Somaliland wada ogtahay maanta farmaajo de wax walba uu sameeyay go'doomin nolol ahaan marka maanta inaka wax teelo inoo dhigteen ma jirto Soomaali waxa dad magac loo Afrika dad ka wada dhigtay badankeeda iyadoo liidato Afrika wada gumaysiga silcayso ayaanu Soomaali haddaan noo dagaalami jir maanta nasiibka darrada nagu dhacday haday nala eeganayso Kenya waxa weeye ragii uu joogay caruurtoodii halkan baanu ka bilaab midnimana waanu sameeynaa markay gaadho sida leenka yagana goonu noo ahaanaya taana waanu ka dagaalmayna marka wax weeyaan Kenya waxba niyadayay galin Soomaali maanta way jilcisantahay haddii qolo la weeraro shanta Soomaalida qoladii la weeraro qolada kale waa u hiilinaysaa si kastoo kala go'an yihiin jirka madow bay ku dagaalamayaan jirka madow iyo ciida ayay ku dagaalamayaan markaan ka hadlo Kenya afar iyo 20 saacadood dagaal wax igama haysan karto runta markaa doonaysid wallaahi igama haysan karto walaana beershigeen adoon ka naaxday baa joogta meesha kontan ciyaar haddaan duro kontan ciyaar ka saaraya magaalada dad Soomaaliland ka soo jeedaan nahay dal baan nahay madax banaana ku dhawaaqaan nahay marka wax weyn dal isku filan baan nahay xuduule hase ahaatee waxa labo la kala saaraa waxa weeyaan dad Soomaaliya baan jinsiga diin iyo waxaan wadaagnaa dhaqan iyo waxaan wadaagnaa wax weeyaan islaamnimo waxaan wadaagnaa diin baan wadaagnaa qofka Soomaaliga runtii dhibaatada la soo gaarsiiyo ma dul qaadan karno maanta cadow kasta oo qof Soomaaliya dawladdu doona Djibouti ha joogo waxa weeyaan Soomaaliya ha joogo Somaliland ha joogo qofka Soomaaliya kilka shanaga joogo qofka Soomaaliya waxa yar la soo gaarsiiya ma dul qaadan karno Muqdisho diimka ama xamar ay Kenya damacdanay soo farageliso ama soo weerarto de barta sano ka baxnana waan la dagaalamana khilaafka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya waxaan u arkaa mid ay Kenya ay ku boobeyso oo damac ka hayo dhul ay digto Soomaaliya marka waa mid qalada maxaan ku raday de halkan waxa ka muuqda in burburka Soomaaliya laga faa'iideysanayo oo dhulkeedii la qaadanayo taasna mid aan ku taageersanay maaha haddaanu Somaliland nahay de dalhaan waanu kala madax bannaanahay laakiin se diirahaan dhul Soomaaliyeed weeye waxa de Soomaaliya